madaxweynayaasha Mareykanka iyo Faransiiska Donald Trump iyo Emmanuel Macron ayaa si wada jir ah u qabtay shir jiraa'id kadib markii ay ku kulmeen magaalada Paris halkaasi oo booqasho rasmi ah ku tagay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ka qayb galay xuska maalinta qaranimada dalka Faransiiska oo maanta ku beegan waxyaabaha ay shirkaasi jiraa'id uga wada hadleen ayaa waxa ugu waaweynaa dagaalka muddada 7 sano ka socda dalka Suuriya madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in xal ugu jirin dalkiisa inuu ka qayb qaato dagaalka looga soo horjeedo madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad isla markaasina uu Faransiisku ku biiri doonin waxaana uu sheegay inay safaaradooda Dimashq ay soo xireen muddo haatan laga joogo 7 sano dhankiisa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in xabad joojinta Suuriya ay tahay muhiim waxaana uu sheegay inay ka wada hadleen madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin markii ay kulan foonkafool ku yeesheen magaalada Hamburg ee wadanka Jarmalka halkaas oo uga qayb galayeen shirka wadamada la isku yiraahdo G20 sidoo kale waxay ka wada hadleen heshiiska isbedelka cimilada ee lagu saxeexay magaalada Paris ee wadanka Faransiiska madaxweynaha Faransiiska ayaa waxa uu yiri waxaan ixtiraamayaa go'aanka uu qaatay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee uu kaga baxay heshiiska isbedelka cimilada ee lagu gaaray Paris laakiin dawladda Faransiiska waxay sii wadi doontaa ilaalin doontaan qodobada heshiiskaasi isbedelka cimilada annagoo ka sii mid ahaanayna heshiiskaasi dhankiisa madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay inay darsayaan heshiiskaasi oo ay qiimeynayaan isbedelka cimilada ee lagu gaaray magaalada Paris ee wadanka Faransiiska sidoo kale waxay ka wada hadleen xiriirka u dhaxeeya Faransiiska iyo Mareykanka madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha Faransiiska ay ka wada hadleen xoojinta ilaaqaadka saaxiibtinimo ee labada dal isagoo intaas ku daray inay ka wada hadleen sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka saaxiibtinimo u dhaxeeya dhankiisa madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa yiri waxaan ku faraxsanahay inaan kulan casho aan wada yeelano waxa aan nahay laba hogaamiye oo laba dawladood oo saaxiib ah hogaamiye waxaanan halkan aan ka wada hadalnay sidii aan u sii xoojin lahayn xiriirka saaxiibtinimo ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Faransiiska